shirkoodan jiraahidee sida gaargaarka gudaha Hargeysa ku qabteen xubnahan isugu jira salaadiinta cuqaash iyo sidoo kale dhalinyarada deegaanka ka soo jeeda bariga magaalada Hargeysa ayaa waxay si weyn xukuumadda ugu bogaadiyeen talaabada ay qaaday ee ku hawlantay xiligan in imaaraadka ay kula gasho heshiis ku aadan in saldhig military laga sameeyo magaalada Berbera waxaana ay tilmaameen in xukuumadda ay garab taagan yihiin waxaana ka mid ah hadaladoodii sidaan in badan oo miidiyaha aanu maqalnay in laga hadlayo dekada Berbera in laga hadlayo madaarka Berbera waa dhulkeennii inaga leh cid inaga qaadaysaana ma jirto haddii dekadahay iyo haddii madaartayba madaarku haddii maanta ay cidi maxay ahayd aynu siino wax badan bay inoo taraysaa siintana lama qaadan waqtiyadan ka horeeya dawladdii siyaad barra ay jirtay waxaa deganaa Ruush waxaa deganaa Mareykan waxaa deganaa dawlado shisheeye intuba waxay inoo sameeyeen waddooyinka ugu dhaadheer Afrika ay madaaradu ka aadaan waxaa jirtay madaarka Berbera inaan shicib ka dhoofi jirin oo ay ka dhoofi jireen ciidamada dayuuradaha ee Ruushka waqti dambe oo ilaa dhowr isteetikii ah ayaa loo ogolaaday inay diyaaradaha Soomaaliya ka duulaan waxaan markaa aan leeyahay wixii wax inoo taraya ee ummadda iyo shacbiga iyo dhalinyarada maanta bilaa shaqada shaqo u abuuraya hadday shidaaltay hadday tahay maxay ahaydeen sibid hadday tahay deked hadday tahay madaaro wixii inoo soo kordhiyay inaan laga hor iman oo ummadda maanta aynu taagannahay meel ayna inagu ka qaban karin waxba baddeeni baa la dhurayaa oo kalluunkii la guranayaa ma ilaalin karno wixii maanta wax inoo taraya in la diidaana waa foolxumo waxaan leeyahay la isku noqdo shicibkana waxaan u sheegayaa wixii wax inoo dana saldhigga military ee laga siiyey Berbera laga siinayo dawladda Imaaraadka Carabta marka hore waxaanu leenahay haddaanu nahay salaadiintan halkan fadhiday odayaasheedani annaga iyo dadka naga tala qaatay ee taladeeda naga tala qaata waanu taageersanahay ku dhiirashada xukuumadda ay ku dhiiratay in dalka maalgelin shisheeye ay timaado tii dekadaanu taageersanahay tanaanu taageersanahay marka hore waxaan caddayn inaanu taageersanahay barnaamijka waxaanu leenahay waddan waxaanu nahay la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda inuu dooranay ugu badnay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siyaad ayaa ka taliya haddii cid moodaysa in cid kale ka talisay waxaanu si weyn u taageersanahay maanta maalgashiga ay bixisay dawladdu airportka Hargeysa ee Berbera ee ay dawladda Imaaraadka ay kula heshiisay taageero buuxda ayaan taageersanahay sababahan u taageersanahay waxa weeye dalka dawlad baynu dooranay golayaal qaran baynu dhisan dawlad dhameystiran baynu nahay sida awood waxa weeye horta waxa weeye inagu dal baynu nahay curdina waxaanu u baahannahay inaynu dalka la maalgeliyo inaynu u baahannahay waxa weeye arrinkan waa taladii seegtay gacanka Khaliij al-Cadan la yiraahdo dhowr iyo 69kii markii dambe looga guuray Abu Dhabi sida oo kale ayaa waxa la yiri Khaliij al-Cadan khaliijkan imika la yiraahdo wax laga xaday waxa la oran jiray Khaliij al-Cadan haweenaha Axmed Maxamed Siiraanyo waa arintaa uu keenay iyo saldhigga haddii ilaahay leeyahay maalgashiga waanu taageersanahay waxaanaanu kaloonu taageersanahay goon istaaga Soomaaliland baanu taageersanahay cid alla yaaliya cidii kol haddii shaqo laga helayo oo dhalinyarada taabiibaysa ay shaqadii ka helayaan oo haddii ilaahay leeyahay ictiraadkii ku dhinaca istiraatiijiyadda haddaba ka aqoon-yahan ahaan waanu soo dhawaynaynaa saldhigga military ee Imaaraadku ka wado Jamhuuriyadda Soomaaliland ama xidhiidhadan tan uu la leeyahay sidaynu wada ognahay maadaama aynu nahay dal soo koraya xagga dhaqaalaha raggii ka soo shaqeeyay barnaamijka saldhigga military ee ugu horeeyo ambassador Baashi oo ah nin aad iyo aad u firfircoon oo Imaaraadka ka dhaadhiciyay in saldhigga military iyagana waafacayo innagana waafacayo waxaan kale halkan aan baliyo uga soo jeedinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wasiirka ama masayrkiisa ama hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici
iyagana maanta dalka hoggaanka u haya wixii iyagana xukuumaddan amba shacabkan amba ummadda Soomaaliland u dooratay iyagu maan leeyahay loo daba fadhiyo ta kale labada gol ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga ha loo daayo ida badan baynu ka helaynaa saldhiga waxa laga helayaa anigu su'aalahan sheegay waxa weeye ciidamaynu leenahay qalab sida ciidamada tababaradoodii saanadoodii wuxuu ahaa waxa weeyaan inagoo dawladda oo maalinka maanta dawladdu inoo idibadeeda oo ciidankeeda loo askarteeda loo de dawlad yaro maalinka maanta aynu ognahay imaaraad iyo cayn ka talisa de waxa la yaalo waxay naga xumeyn kartaa iyo waxay naga farsamayn kartaa toona ma jirtay faa'iidadiisa aynu soo dhaweynaa leeyanagu intaasana ku soo gabagaynaa maalmihii laga soo gudbay ayay si weyn isu soo tarayeen dhawaqyada ku aadan saldhigga military ee la tilmaamay in laga sameeyay magaalada Berbera oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.